madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo waxa uu degdeg u amray in caafimaad dibadda loogu qaado wariyaha ka tirsan telefishinka Universal ee maanta qarax miino lagula eegtay isagoo marayay degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir. Cabdixamiid Karzai oo kamid ah farsamayaqaanada Universal TV ayaa dhaawac waxa uu ka soo gaaray qaraxaas loogu xiray gaarigiisa xilli uu marayay iridda hore ee Shaleemo Subar oo ku taala degmada Xamarweyne. Cabdixamiid ayaa dhaawac ka soo gaaray qaraxaas waxaana haatan lagula tacaalayaa mid ka mid ah xarumaha caafimaad ee ku yaala Muqdisho. Farmaajo iyo waliba mas'uuliyiinta Universal TV ayaa maanta kulan ku yeeshay xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya waxaana isla garteen in berriba la qaado Cabdixamiid Karzai waxaana lagu soo dabiibi doonaa magaalada Qaahire ee xarunta waddanka Masar halkaas oo caafimaad dibadda loogu qaadayo. Caawana wuxuu Farmaajo degdeg u amray in howlaha u dhiman wariyaha loo dhameystiro si berriba loogu qaado caafimaad dibadda. xaaladda caafimaad ee saxaafi lagu magacaabo Cabdixamiid oo ka tirsan TV-ga Universal oo maanta qaraxa loogu xiray gaarigiisa oo ka dhacay degmada Xamarweyne ayaa soo hagaagaysa waxaana saxaafigana la dhigay dhaawiciisa isbitaalka Madiina halkaasoo lagula tacaalayo xaaladiisa caafimaad. Cabdullaahi Xirsi oo ah agaasimaha TV-ga Universal qaybta bariga iyo bartamaha Afrika oo goordhow la hadlay raadiyo kulmiya ayaa sheegay in xaaladda wariyahaasi ay haatan soo hagaagayso balse dhaawac halisa uu ka gaaray qaybaha dambe ee jirka sida uu hadalka u dhigay. waxaanu sheegay in dhakhaatiirta ku howlan dhaawiciisa wariye Cabdixamiid ay hadda la tacaalayaan. walaalow dhib weyn ayaa gaaray walaalkeen Cabdixamiid Karzai maanta dhakhaatiirtii waa ay dadayeen raaji wixii ka qaadeen maanta uu iska dhigtooday laakiin finally galabta haddana xoogaa waxaan ka dareemaynaa soo roonaansho ogaalkiisa iyo maxaa la ishay inuu dadka fahmaayo oo kula hadlaayo ayaan hadda aan maqribkii aan kusoo dukaday agtiisa hadda wuu dhaamaa suusaaka ahaa. waya meelaha ugu daran dhaawacu uu ka saameeyey maxaa ka mid ah? waa garabka midig ilaa sinta hilibkaasoo dhan ayaa baaba'ay oo qaarna gubtay qaarna maxaa la dhahaa ishaga uu dilaac weyn ku jiraa. garabka fadhigiisana waxaa ku jira fraction ama waxaa ku jiro jab ku jiro marka sintana jab ayay ka sheegeen laakiin weli raajada clear ma